bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa dhismaha ciidamada dowladda afghanistan 20 sano kadib maanta waa sidee xaalkoodu ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka horumarka degdega ay sameynayaan xarakada daalibaan wuxuu ka turjumayaa guuldarradii dadaaladii maraykanka ee ahaa in ciidamada afghanistan loo beddelo xoog dagaal oo madax bannaan iyadoo ay sii kordhayso dareenka hoos u dhaca ciidamada dowladda afghanistan xaaladda ciidanka afghanistan intuu lagu jiro guuldarooyinkii isxigay ee ay kala kulmaan dagaalyahanada daalibaan bilihii lasoo dhaafay iyadoo ciidamada amniga afghanistan lagala wareegay 15 magaalo oo ay ku jiraan qandahaar heraad kuwaasoo la tixgeliyo inay yihiin caasimadaha gobollada ugu muhiimsan ee ka jira dalka waxayna noqdeen gacanta daalibaan warbixinta wargeyska waxay tilmaamtay in weerarka degdega ah ee daalibaan ay sababeen isdhiibitaanno ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada dowladda afghanistan waxayna suurtogelisay dagaalyahanadu xarakada daalibaan inay qabsadaan diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab kale oo militari oo maraykanku uu siiyey afghanistan kuwaas oo ku kacayo malaayiin dollar dagaallo qaraar ayaa ka dhacay duleedka magaalooyinka qaar oo socday muddo toddobaadyo ah kadib daalibaan waxaa u suurta gashay inay maraan jidadka difaaca ee ciidanka oo ay la wareegaan magaalooyinkaas iyagoo aanan la kulmin wax iska caabin ah dhismaha qalabka amniga ee afghanistan wuxuu ka mid ahaa tiirarka ugu waaweyn ee istaraatiijiyaddii maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama kaasoo doonaya inuu helo hab uu ugu wakiisho hawsha dejinta amniga afghanistan mas-uuliyiinta maxalliga ah kana baxo waddanka qiyaastii 10 sano ka hor wargeyska new york times ayaa sheegay in dadaaladaasi ay ka dhasheen dhisidda ciidan afghanistan ah oo la mid ah sawirka ciidanka maraykanka hay-addaasni waxay ahayd inay sii noolaato oo ay sii socoto dhammaadka dagaalkii maraykanka ee afghanistan laakiin hadda waxay u badan tahay inay burburtay intaanu maraykanka ka bixin dalka afghanistan wargeysku wuxuu u sababeeyey burburka ama kala daadinta ciidanka afghanistan dhowr arrimood oo ay ka mid tahay awoodda daalibaan oo korortay bilihii lasoo dhaafay hase ahaatee ciidanka afghanistan ayaa u muuqday ciidan gaajaysan oo aanan haysan iidaan iyo agab ciidan oo ku filan taasi waxay sababtay in ciidanka uu moraalkoodu xumaaday kadibna ay bilaabeen inay isdhiibaan halkii ay ka dagaalami lahaayeen tani waxay fursad siisay daalibaan oo markii horeba doonaysay inay maamulaan guud ahaan dalka afghanistan warbixintu waxay tilmaamtay in muujinta kala daadsanaanta ciidanka afghanistan aysan soo muuqan markii ugu horeysay toddobaadkii lasoo dhaafay laakiin ay ka muuqata bilo ka hor khasaaraha isbiirsada ee soo gaaray ciidamadaas xitaa ka hor intuusan madaxweynaha maraykanka joe biden ku dhawaaqin go'aanka maraykanka in ciidamadiisu kala baxayo 11 sebteembar wargeysku wuxuu tilmaamay inay jiraan daciifnimo ka jirta dhanka ciidamada amniga afghanistan oo ay ugu weyn tahay in ciidamadaasi oo ku qoran diiwaankoodu 300 oo kun oo qof la tusay maalmihii lasoo dhaafay in tiradooda dhabta aysan ka badnayn qiyaastii 6 meelood meel tiradaas sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka daawadayaal intaa ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii raadka dhacdooyinka oo aan uga hadlayna xaaladihii ugu dambeeyey dalka afghanistan